إنا لله وإنا إليه راجعون. الله هو نحرسته وحامانته مقالة هرقيسة أسقر الله قسمي مرحون أحمد ياسين قبحدي oo ka mid ahaa odayaashii kaalinta weyn ka soo qaatay halgankii dalka Soomaaliland taariikh fac weyn ku leh dalka aaska qaran ee marxuumka loo sameeyay waxa ka qayb galay madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadanaha musharaxa madaxweynaha xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha qaranka mas'uuliyiinta asxaabta qaranka odayaal waxgarad salaadiin iyo dadweyne aad u tiro badnaa waxaana halkaasi taariikhda marxuum Axmed Yaasiin Gabaxadi ka sheegay qaar ka mid ah salaadiinta dhaqanka iyo mas'uuliyiin kale iyagoo dhamaantood baqareen marxuumku ahaa nin wanaagsan oo jecel samaanta qadariyada bulshada sidoo kalena dalka wax badan u soo qabtay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maanta waxaynu joognaa aaska marxuum Axmed Yaasiin Gabaxadi ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo Axmed Yaasiin Gabaxadi waxa uu ka mid yahay odayaasha taariikhda ku suntan ee magacooda inagoo cimrigan joogna iyo waqtigan iyo da'dii ka horeysay baynu maqlaynay intii ay Soomaaliya wax noqotay ee ay magaalo timidba dadkii hogaaminayay buu ka mid ahaa Axmed Yaasiin Gabaxadi anigu waxaan bartay 19 xilligaas oo uu ka mid ahaa odayaashii waaweynaa ee aanu ku dayanaynay markii nabadaynta la sameeyay waxaanu joognaa aaskii rukun weyn oo dadkii Soomaaliland isku hayaa dadkii odayaashii Hargeysa ugu waaweynaa ka mid ah Axmed Yaasiin Gabaxadi ilaahay sanadii ha ka waraabiyo qoyskii iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo qarankii ka baxay bana samir Yemen ka siiyo Axmed Yaasiin waa dadka nabadda jecel ee dadka isu geeya ee dadka isku ururiya dhowr jeer oo inta caroodaan siyaasadda bas kaga bax saddex afar jeer buu yimid adeerow adag joogtaa wax taraya adeer ka bixin hadda chance-ka badiso mid ka liita oo dadka isku dilay iman doona adeerow meesha joog ilaahay samir Yemen Allah naga siiyo marxuum ka dhintay halkaasayna wada horan waxay noo ballanay inaynu is saamaxno oo dadkii nin walba ninka uu saamaxo oo halkaasayna wada horan aynu ku kala dhimano insha Allah bismillaah kariino ku saamaxan oo isku niyad wanaagsan ayaan ka bariyaa waxaan leeyahay dadkiisii iyo eheladiisii iyo dadka Soomaaliland oo dhan waxaan leeyahay samir Yemen Allah naga siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun marxuum Axmed Yaasiin Gabaxadi taariikhdiisa waa laga waramay naxariistii janna Allah ka waraabiyo haliyay weyn oo naga baxay maanta Soomaaliland oo dhan ka baxay ama ummadda af Soomaaliga ku hadasho dhan ka baxay ayuu Axmed Yaasiin Gabaxadi ahaa Allah u naxariistii janna Allah ka waraabiyo taariikhdiisa halka lagu dhammaystiri karayo hibadii ilaahay u siiyay aftahanimada suugaanta murtida yacni deeqsinimadiisii nabi maxamed Allah ku xiriiriyo wuxuu ahaa halgamayaashii Soomaaliland xornimadeeda ka qayb galay wuxuu ahaa kuwii dubsoonada xorriyada ka qayb galay wuxuu ahaa kuwii nabadaynta ka qayb galay wuxuu ahaa nin dulqaad badan oo deeqsiya oo aftahama oo ehludiina Gabaxadi Allah u naxariisto innagana ehelkii iyo qaranka Soomaaliland oo dhan ilaahay samir Yemen ka siiyo wuxuu ahaa haliyay ka baxay ummadan halgan badanna soo galay Farasa Axmed Yaasiin Gabaxadi waxaan ka tacsiyadeynayaa dhammaan qaranka reer Soomaaliland ayuu oday u ahaa odayaashiisii haldoorka abuu ahaa dadkii halganku ahaa isla mar ahaantaana qoys halgan buu ka tirsanaa reer Gabaxadi qoys halgan bay ahaayeen Axmed Yaasiin wuxuu ahaa haldoorkeennii odayaasha ahaa ee soo jireenka ahaa oo taariikh badan inoo hayay nin aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa anigu muddo dheer baan qiinay taala waxaan uga baryaynaa inuu kelmadda thaabitka oo ku sugo inagana samir Yemen naga siiyo dhammaan reer Soomaaliland ilaahay maanta geerida ku timid Axmed Yaasiin Gabaxadi samir Yemen ummaduna ha ka siiyo ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu reerkii ka baxay ummadda reer Soomaaliland samir Yemen ka wada siiyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro iyo madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi oo iyaguna hadalka isaga dambeeyay ayaa si qoto dheer uga waramay taariikhda marxuum Axmed Yaasiin Gabaxadi تعسيدينية دمان شعب غير سوماليلاند يقرأ كسوماليلاند
waxaan ka taxsiinayaa geerida ku timi ee xaqa ah axmed yaasiin gabaxaddi waxaan kaloo taxsiinayaa carruurtiisa iyo reerihiisa iyo walaaladii iyo dhammaan ehelka iyo qaraabada axmed yaasiin ilaahay ha u naxariisto ilaahay jannatul firdowsi ha geeyo waynu ducaynaynaa axmed yaasiin wuxuu ahaa sidaa cabdilqaadir sheegay oday buu ahaa beeldaajiyuu ahaa ganacsaduu ahaa guurti buu ahaa siyaasi buu ahaa marka wuxuu ahaa odayaashii ugu magaca weynaa somalilan meelay degtaba weyna ilaahi raajicuun kullu nafsin daa'iqat ilmowt axmed yaasiin gabaxaddi saa raggii iga horreeye sheegay wuxuu ahaa haldoorkii iyo aqoon-yahankii iyo hoggaamiyaashii somalilan waxaan u malayaa ragga farakuturisa ka sii hadhay buu ahaa axmed yaasiin gabaxaddi iyo raggii la faca ahaa muddadii dheereyd ay dalka odayaasha u ahaayeen ama madaxda u ahaayeen ama talaqabeedka u ahaayeen kontonkii sano ama lixdankii sano inagu horreeyey waxay soo mareen halganno badan oo kii ingiriisku ka mid yahadoo kuwa damboo kocdana ka mid yihiinoo kii asramtu ka mid yahadoo kii dambe dib heshiisiinta iyo dejintu ka mid tahay laakiin waxay inoo jeexeen haddii ragga dambana raaco dad midaysan kala qaloon kala qoqobnayn wax walba wadaaga oo waxay isku qabtaanna iyagoo markaaba xalliya may ahayn dadka sidaan iminka kala didsan waxay abuureen bulsho somalilandah oo bari ilaa galbeed axmed yaasiin gabaxaddi oo kale halkuu tagaba uu odaygoodii ka yeero ku qaloonayn weliba tala qabeen ka yahay